assalaamu calaykum ku soo dhowaada muuqaalkeena waxaan sheegi doonnaa ereyo dhiirigelin ah oo ku saabsan sabarka. naftaada hala barbardhigin kuwa haysta wax badan. sidaa haddaad samayso waxaad martay waddo khatar ah. noloshu waxay kugu noqonaysaa mid aan soconaynin. markaan ku leeyahay naftaada hala barbardhigin kuwa kale, maxaa yeelay Ilaahay wuxuu inoogu nimceeyey qaab kala duwan. qofkaas waxa uu haysto ma haysatid waa sax, balse adna waxaad haysataa wax isaga aanan haysan. sidaas darteeda u mahad celi Allah. maalmo waad xanaaqsanaan, maalmo waad murgoon. sidaa waa sida ay noloshu u soconayso. waxa aad dareemayso yaysan kaa fiicnaanin. keliya diiradda saar ujeedkaaga. si kastoo aad u samayso waxa ugu fiican, weli dad ayaa ku cambaarayn doona. waxayna raadin doonaan ceebtaada si ay u soo bandhigaan. kuwaas oo kale haddaad aragto iska indhotir. dhib ma lahan wax walboo kugu dhaca noloshaada. ahow mar walba mid qalbi wanaagsan. dhibaatooyinku adduunku yaysan ka dhigin qalbigaaga mid mugdi ah. ma jiraan wax la dhahayo waa waxa ugu dambeeya. murugtaada way tegi doontaa. dhallinyarnimadaada way tegi doontaa. xanuunkaagu wuu tegi doonaa. ee keliya ku dadaal sidaad u gaari lahayd hadafkaaga. xaaladaha adag Ilaahay wuxuu kugu imtixaamay waxay tahay wuxuu jecel yahay inaad u soo laabato. markaa ku sawir wax walboo kugu dhaca. sidoo kale u mahad celi xilliga aad barwaaqo ku jirto. xanaaqa wuxuu burburiyaa wax walba. meeqaan maqalnaa ama aan aragnaa kuwa noloshoodu ku burburay hadal yar ama ficil yar oo uu la socdo xanaaq. noloshoodu ka dhigay kuwa shalaaya in badan. xitaa markaad khilaafayso qof kale, adeegso ereyo wanaagsan. ma jirto xilligaas baahi ah in la isku xadgudbo ama la isdhaawaco. mararka qaar waan daalnaa, balse inaad isdhiibto kuuma furna. horay u soco, diiradda saar waxaad u socoto. Ilaahay wuxuu og yahay wax walba wakhtigay ugu fiican yihiin. ha quusan marka ay xaaladu adag tahay. ha quusan marka ay noloshu u socoto dhinaca kale. Ilaahay ayaa ku siin doona wax walba. waad dhacaysaa, waad istaagaysaa. sida waa tartanka nolosha. adduunyadan ma ahan meesha ugu dambaysay, ee waxaa jirto aakhiro aanan dhammaanaynin. ha u oggolaanin xanuunka inuu kaa dhigo naxariislaawe. qofna ma oga qofka kale waxa uu ku sugan yahay. ha u oggolaanin xanaaqa inuu ku kontaroolo. sidoo kale nacaybkuna ha u oggolaanin inuu ku faafo qalbigaaga. noloshaada u dhiibo alle. waxaad ku noolaanaysaa nolol rajo leh. wakhtigaaga ha ku lumin walwal, gaar ahaan waxyaabaha aadan maamulkoodu haynin. hana u oggolaanin walwalka inuu kaa qaato farxaddaada. beddelka aad wakhtigaaga ku lumin lahayd walwal, u mahad celi alle. waxba ha ka soo qaadin dadka ka hadlaya gadaashaada, balse u mahad celi alle, maxaa yeelay waxay kugu khasaarinayaan camalkooda. xanuunka aad soo martay iyo dulqaadyadii aad soo muujisay waxay kaa dhigayaan mid naxariis badan. qofka deggan ma ahan daciif. xaqiiqdii waa qof awood badan. wuxuu u dhibtoonayaa sida aan anagu u dhibtoonno, balse wuxuu doortay degganaan. iska jira carabkaaga. waxaad ku dhawaaqi kartaa ereyo xanuun badan. waxaa laga yaabaa ereyadaas inaad ku dhaawacdo nolosha dad kale. ogow in laf jabtay ay fududdahay inay bogsato, balse maskax jabtay way adag tahay inay bogsato. dhibaatadana haysata ayaa ah inaanan sabrin. mar walba waxaan rabnaa jawaab. waxaan rabnaa wax walba inaan hadda helno. Ilaahay ayaa og wax walba, ee aamin isaga. haddaadan qof jeclayn, ka fogow, hana dhaawicin. cayda iyo xishmad darida waxay calaamad u tahay iimaanyarida. waxba ha ku mashquulin yaa saxan, ee waxaa muhiim ah maxaa saxan. si kastoo aad u fiican tahay, kuwa ayaa ku nici doona. taasna dhib ma lahan. iskana indhitir kuwaasoo kale. wakhti ha ku lumin si aad u caddayso darteeda cambaaraynta lagu cambaareeyey inay qalad tahay. marnaba ma qancin kartid. haddana waxay raadinayaan mid kale. waxyaabaha xun kuugu dhaca ha ka jawaab celin. keliya ka baro khibrad. fikirkaaga u beddel mid fiican. waxaa beddelmi doonta noloshaada. way adag tahay inaad Ilaahay u mahad celiso markaad ku jirto xaalad adag, balse u mahad celi sida isaguba kuu siiyey wax badan. qaladkaaga iyo khibraddaada ka baro cashar, maxaa yeelay Ilaahay wuxuu u soo diray sabab. haddii isla xaaladdii kugu dhacdo, sawir qaladka aad ka baratay.
wax walba oo kugu dhaca horay u soco inaad kor u kacdo iyo inaad hoos u dhacdo jacaylka iyo nacaybka wanaagga iyo xumaanta dhammaan way imaanayaan haddana way bixi doonaan taasi waa nolosheena haddaan nahay bani aadam waxaan isku khilaafnaa arrimaha qaar taas kama dhigayso midkeen inuu xun yahay waa inaan barnaa isxishmaynta dhib ma lahan wax walboo aad wajahayso ogow inuu jiro qof wajahayo inta aad wajahayso in ka badan ku sabar dhibaatooyinka uguna mahadceli alle waxaad haysato iyo waxaadan haysanba ha ku tiirsanaanin dadka kale si ay kaaga dhigaan mid faraxsan alle ayaa xaggaaga jiro sidaa darteeda ka taxadir maskaxdaada intaadan cambaaraynin ka hor yaanan iloowin inaan kuwa badan oo adduunka jooga aan ka fiican nahay waxa aan la dhibaatoonayno ayaa yar marka loo barbardhigo kuwooda ee u mahadceli alle haddaad ku faraxdo naxariistiisa waa inaad aqbashaa imtixaankiisa badanaa dadka waxay maleeyaan midka aamusan inuu yahay mid daciif ah balse waa awood gudaha ahaatay aamusnaantu waa waxa uu fiican nolosha waxaa jira kuwa gadaal kuu jiidaya ha u ogolaanin kuwaas inay gadaal kuu jiidaan baro sida la isaga indhitiro hadallada dadka sidoo kale baro sida loo kontaroolo naftaada wax walba waxay leeyihiin wakhti wax walba oo soo daahana waxay leeyihiin naxariis awooddaada kuma imaanayso guul waxay ku imaadaa dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag taasi waa sababta in badan ilaahay ku jeclaado waa in badan uu ku imtixaamo ha ka leexan dhibaatooyinka sabab ayaa jirta loo dhigay waddadaada kuwa sabarka dhabta ah ayaa ah kuwa uu ilaahay jecel yahay eray bixintooda kuma jirto wax la dhahayo isdhiibid maalin walba waxay la imaadaa dhibaatooyinkeeda aan noqona kuwa wanaagsan wax badan oo aad sabarto fudaydka wuu imaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته